السلام عليكم كلنتو عن wanaagsan kusoo dhawaada mawduucan kooban waxaan ka hadli doonaa saddex hab oo isaga daweyn karto waxa loo yaqaan daalka oo marka qofku dareemo markaa saayidka waxa jira habab kala duwan balse marka laga hadlayo daalka guud ahaan oo qofku dareemi karo noloshiisa ka hadhay balse sidoo kale marka qaarkood waxa dhici karta qofku inuu dareemo daal xad dhaaf ah taas oo koraysa taxta shaqadiisa maalinlaha saddexdan hab ee sheegi doono ayaa halka ugu badan inta badan la isticmaalo marka laga hadlayo in la iska daweeyo daalka taasoo qofka dhibaatooyin keeni karta guud ahaan noloshiisa balse ka hor intaan muddo bilaa waxaan ka codsanayaa inaad ka saarto follow sidoo kale qaybta barbar linka saaran youtube-kana inaad soo saarto subscribe mahadsanid inuu soo laabana mawduuceennii habka koowaad wuxuu yahay inuu qofku seexdo hurdo ku filan tusaale ahaan oo kale inuu seexdo 7 ilaa 8 saacadood habeen kasta taasoo ka dhigan in markaa la yareeyo daalka dhinaca kale waxaa la soo jeedinayaa qofku inuu ka fogaado isticmaalka shaashadaha sida mobilka kahor markuu seexanayo qodobka labaad waa in qofka cuno cuntada sidoo kale inuu cabo biyo badan tan waxay keenaysaa in qofku helo nafaqooyinka uu baahan yahay sida borotiinada iyo sidoo kale macdanaha kuwaasoo qayb ka qaadanaya in qofka caawiyaan yareynta daalka iyo sidoo kale in qofku markaa shaqadiisa si maalinla u guto taasoo markaa aanu dareemin ugu dambeyntii qodobka saddexaad wuxuu yahay in qofku sameeyo jimicsi iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq jireed taas waxay keenaysaa in qofku ay ogolaato tani in la hoos loo dhigo ama la yareeyo daalka xad-dhaafka markaa qofku uu dareemayo waxaana la soo jeedinayaa in qofku sameeyo ugu yaraan maalintii 20 ilaa 30 daqiiqo inta u dhexaysa oo jimicsi ah tan waxay qayb ka qaadanaysaa inay gebi ahaan meesha ka saarto daalka xad-dhaafka markaa qofku uu dareemayo tani kula dambe nabadgelyo. Follow me in social media.